السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusulwada muuqaalka waxaan rabaa inaan ku aragno qaabka u samayn karno website copy mise website cloning yani website oo aad ku aragtay internetka aad rabto inaad design-kiisa copy garayso oo aad rabto marka in aad ka dhigato website-kaada oo editing ku samayso marka waxaan ku tusin doonaa qaabka ugu fiican ee aad ku samayn karto adigoo wax shaqo badan oo qabanin marka muuqaalkan haddii kusoo gaaro saar inuu kusoo diran waxaan rajeynayaa inaad noo soo dirto marka waxaan rabnaa inaan isticmaalno website loo yaqaan tenweb.io waa website AI ah marka waxaad tegaysaa google waxaad qoraysaa chromeka tenweb.io kadib wuxuu ku keenaa halkan get free for free get started for free ayaa kadib saa u jeedin waxaan geen doonaa dashboardkan marka saddexdan option oo nasiina option kuwaad maxaa waa marka website super oo website from scratch rabto inaad ka hagaajisato oo ku samayso AI kanna maxaa waa recreate oo ah kan hadda aan rabno inaan isticmaalno website design aan rabno inaan recreate ku sameyno oo copy aan ku sameyno kanna maxaa waa website oo migration rabto inaad ku samayso oo kasoo guuriso hosting kana aad rabto inaad inta ku hoos geliso sida ku website waa hosting oo kale oo website oo ku hoos garan kartaa marka optionka loo qaadanayna proceed ayaan leenahay kadib marka wuxuu ku leeyahay iska diiwaangeli convert my wordpress site to wordpress with AI marka aniga waxaan leeyahay continue with google kadib waxaan oranaa gmailkii aan xalanaa kadib continue ayaan leeyahay halkan wuxuu ku leeyahay marka geli URL-ka rabto in website-ka lagu copy gareeyo score clone lagu sameeyo aniga waxaan soo qaadanaa website-kan aan rabaa inaan example usoo qaato waxaan leeyahay copy kusoo laaban halkan paste ayaan ku leeyahay marka uu jagaranaa in website-kan uu yahay website lagu samayn karo copy mise in lagu samayn karo marka hadda anigu noo jagaray tiga noo saaray marka waxaan leenahay domain master uu leeyahay yes aan leeyahay kadib proceed ayaan leeyahay saa ujeedaan hadda wuxuu noo sameynayaa website-ka copy noo sameynayaa intan option uu maraya installing uu sameynaya create layout iyo add design-ki element uu sameynaya kadib uu bogaya marka intaas noogu baahan waan sugaynaa saa ujeedaan hadda noo bogay preview and edit iyo website aan leenahay marka hadda wuxuu noo sameyn doonaa website-ka copy iyo design-ku noo tusin doonaa saa ujeedin website-kii oo copy noo sameeyey wuxuu ka bedelin saa ujeedin kaliya wuxuu kaa reebaya markii uu noqoto website copy contextkii marka ku jiray website-ka informationkii kuma siinayo marka saa ujeedin inta hadda waxaa laga baahan in adiga aad samaysato generate codeka oo ku sameyn lahaa email temporary in adiga soo gashato pagina magac uu ka reebay saddex page oo aa ujeedin blog iyo privacy contacts uu naga reebo rabo in adiga kusoo darsato magacyo marka iyo marka saa ujeedo meeshan waxaa waaye blogs oo deerta waa kusoo gashanaysa adiga marka daarta in edit kusoo waa dhesa edit with tenweb builder marka wuxuu ku geynaa toos ku geynaya elementa page builder-kii uu toos ku geynaya saa ujeedin elementarkuu nageyey meesha oo website kale edit garanaya wordpresska saa ujeedin halkan textkan daarta waa iska bedeli kartaa daarta pagehii marka magacyaha kusoo darsanaysaa marka qaabkaas u edit garanaysaa marka waa mahadsantiin haddii muuqaalkan kusoo gaar fadlan like noo saar haddii aan ugu soo biran waxaan rajeynaya inaan ugu soo birto waa mahadsantiin